kumanaan qoysas ah oo sanado ka hor ka barakacay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa bilaabay labadii maalmood ee ugu dambeysay in dib ay ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho kadib markii dagaaladii ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ay saameyn ku yeesheen qaar ka mid ah deegaanada daafaha magaalada Muqdisho. dadkani barakacayaasha ah oo iyagu ka soo qaxayay duleedka Muqdisho sida deegaanada Carbiska, Tareedisho, Ceelasha Biyaha iyo kuwa ku dhow ayaa waxa ay ku soo qaxayeen gaadiid, gaari gacano iyo gaari dameero waxaana ay ku soo qulqulayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka dadka ay ku qaxayeen ayaa u sheegay TV-ga Somalisat in sarowkac uu ku yimid qiimaha lagu kireysto gaadiidka dadku ay ku guuraan. cirbarka waxa lagu kireenayaa 3 milyan. waxa sarow qaaday maxay tahay qiimaha gaadiidka? waxa sarow qaaday waxa way dagaalada socda awgiis ayaa sarow qaaday. meelaha laga soo qaxo inta kamid ah waxa kamid meeshan Ekis Valley iyo Tareedisho intaas kamid ah. sidoo kale mid ka mid ah wadayaasha gaari dameerada ayaa asna Somalisat u waramay asigoo ka warbixiyay goobaha dadka ay ka soo barakacayaan iyo qiimaha ay ku soo barakacayaan. waa barakacan oo soo qisaastaan ka ruuray waa gartay ka war qiimaha ay gaadiidka gaari dameerada lagu qaado alaabta hal banduuc waa soo rareeyay lawa laakiin hadda sare u kacday Soomaa marka ka bilaaween inta hadda 700 ku soo 700 marka horne 5 saddex saasaya marka barakac markoo bato lacagtan way badatay waa badanahay baabuurta ma arkana si kordhis halkee loo wada marka dalaatan wardiigle dad hore wardiigle ugu qaxay ayaa iska lamiya ka waran wadadan oo kale marka maraysin isbaaro iyo dhibaatooyin ma la kulantaan waad wax saayida marka saaka alwaaxda la diiday jidka xoogay lagu celshimaana dadkan oo caadiga qofna diidmayso. ugu dambeyntii taliyaha ciidamada isgoyska Ekis Control Afgoye Axmed Yare oo saxafiyiinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay sugayso ammaanka dadka soo barakacaya isla markaana Ekis Control oo gaadiidka looga qaado lacag canshuura dadka barakacayaasha ah gaadiidka ay ku guurayaan aan waxba lacag laga qaadin. walaalo waxaan shalay daraad iyo maanta oo socda si xooggan oo socda annagu waajibkana saaran waxa waaye dowlad ahaan inay soo dhaweeyaan shacabkaas haddii noqoto amni haddii noqoto in canshuurta laga dhimo sida baabuurta qaxayna lacag laga qaadin dadka dhibaataysan ay saariyiin amnigana baaritaan xoog loo marayaan meelihii tegayana xarajina ciidamo kala barcada uga soo horeyso markii inta lagu baaro meesha uu tegayana ciidamo kale ku sugay oo sii dejinay baabuurta qaxa lacag ma laga qaado tilmiinta ma laga qaado maxaa yeelay waaba qax ilmo iyo caruur iyo waayeel saaran joodariyaal markaas sadradeed saraakiisha amniga markay xirteen shirka ugu dambeeyay ka baxayaan baawada aan qax lacag laga qaadin maadaama dadkaas dhibaatada oo soo dhibaatooday aan annagana ugu saacideyno in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta badan waxay ka soo qaxayaan madaafiic maalmihii ugu dambeysay ku dhacday deegaanada loo barakacay ee duleedka Muqdisho sida Garas Valley, Tareedisho iyo kuwa ku dhow waxaana barakacan oo bilowday markii ciidamada AMISOM ay dhankaas iyo deegaanada loo barakacay ay dagaal ku qaadeen maalmo ka hor. Cabdi Kaamil Yuusuf Maxamuud, Somalisat TV, magaalada Muqdisho.